السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gorfaynta ciyaaraha ee Som Sports. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar ama rukumo channelkeena si aad u hesho xogaha ciyaaraha ee halkan aan sida joogtada ugu baahino. Qodobada aanu barnaamijka ku soo qaadan doono waxa kamid ah waxaan dul istaagi doonaa ama falanqeyn doonaa waxyaabihii laga yiri guuldaradii weyneyd ee Barcelona kala kulantay naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka ka dhisan taas oo ahayd guuldaradii ugu weyneyd ee Barcelona ay taariikhdeeda la kulanto marka ay ciyaarayso tartamada qaaradda Yurub. waxaan kaloo warbixin idinkaga haynaa Lionel Messi joogi kara Barcelona kadib guuldaradii weyneyd ee kooxdiisu kala kulantay kooxda Bayern. qodobada kale ee aanu fiirin doono intaanu barnaamijka ku guda jirno waxaa kamid ah bandhiga daayirka kooxda Bayern Munich Alphonso Davies oo ka yaabsatay indhaha caalamka ciyaaryahanada waaweyn ayaa ka hadlay bandhiga daayirkan. inagoo sidoo kale warbixin idinkaga haynaa kooxda Napoli oo hogaanka u qabatay kooxaha raadinaya ama tartanka loogu jiro xidiga difaaca bidix ka ciyaara ee mulkiyadiisa ay leedahay Real Madrid ee Reguilon. qodobadaasi kuwa kale ayaynu ku soo qaadan doonaa inta aan ku guda jirno barnaamijka gorfaynta u diyaar garooba haatan isagoo dhameystiran. markale kulan wacada wadayaal haatanna aynu guda galno barnaamijka gorfaynta ciyaaraha oo dhameystiran ay ku bilowna kooxda Barcelona ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu weyneyd taariikhdeeda kubadda cagta marka ay ciyaarayso tartamada qaaradda Yurub iyada oo 8 guuldaro kala kulantay kooxda Bayern Munich oo iska xaadirisay afar dhamaadka tartanka kooxaha Yurub ee Champions League oo sanadkan lagu soo gabagabeynayo magaalada Lisbon ee dalka Portugiiska. Bayern ayaa Barcelona hal ciyaar oo kaliya kaga adkaatay 8 gool iyo 2 gool. qaybtii hore ee ciyaarta ayay Bayern ciyaarta ku hogaaminaysay 4 gool iyo 1 gool oo ay ku dhashatay 30 daqiiqo ugu horeeyay 4 gool. dhinaca kale Barcelona ayaa 1 gool dhashatay iyadoo goolkaasi uu ahaa mid iska dhaliyay xidiga David Alaba. qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa la isku soo laabtay sidii oo kale ayay mar kale 4 gool dhashatay kooxda Bayern halka ay Barcelona dhashatay 1 gool oo dhaliyay xidiga Luis Suarez. waxa kulankan bandhig fiican sameeyay xidiga Muller oo bandhig soo xasuusiyay dadka kii xulka Jarmalka ee 2014 kulankan sameeyay. guuldaradaasi weyn ee Barcelona soo gaartay ayaa sabab u noqotay in warbaahinta qaarkeed xilli horeba ay baahiso in shaqada laga cayriyay tababarihii Barcelona Quique Setién hase yeeshee ilaa iyo haatan ma jiro war sax ah oo ka soo baxay Barcelona oo arrintaasi lagu xaqiijiyay. dhinaca kale madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa raaligelin ka siiyay taageerayaasha dhibaatada weyn ee kooxdiisa soo gaartay waxaana uu sheegay inay jiraan go'aamo xilli horeba la gaaray oo dhawaan la shaacin doono. dhinaca kale xidiga Gerard Piqué oo kamid ah xidigaha muhiimka ah ee kooxda ayaa sheegay inay tani tahay mid aan loo dul qaadan karin. waxa uu sheegay inaysan ahayn markii koobaad labaad ama saddexaad isagoo oo sheegay inuu isagu yahay kan ugu horeeya ee diyaarka oo inuu kooxda isaga tago haddii la helayo dhiig cusub oo kooxda ka bedela dhibaatada haatan ay ku jirto. xidigaha kale ee hadlay waxa kamid ah xidiga Frankie de Jong oo isna taageerayaasha ka raali galiyay dhibaatada kooxda soo gaartay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay isbedel weyn. warbaahinta wararka lagu qoray ayaa waxa ay sheegayaan in ay ciyaartoyda waaweyn ee Barcelona doonayaan oo kaliya in kooxda isbedel lagu sameeyo gaar ahaan la qabto doorashada madaxtinimada ee kooxda iyagoo sidoo kale dalbanaya in hogaanka kooxda loo magacaabo halyeeyga hore ee kooxda Xavi Hernandez. warar kale ayaa sheegaya in ugu cadcad yahay hogaanka Barcelona Mauricio Pochettino oo hore u soo maamulay kooxda kubadda cagta Tottenham iyo waliba kooxda Espanyol. dhinaca kale warar hordhaca oo dhawaan soo baxay ayaa sheegaya in halyeeyga hore ee Barcelona Arsenal iyo xulka France Thierry Henry uu yahay mid kamid ah kuwa ugu cadcad in loo magacaabo tababaraha Barcelona. dhinaca kale haddaynu fiirino ciyaaryahanada Bayern ee kulankan ka hadlay goolhayaha reer Jarmal Manuel Neuer ayaa raaligelin ka siiyay amaba sheegay inuu ka xun yahay in 8 gool laga dhaliyo hal kulan saaxiibkiisa xulka qaranka ee Marc-Andre ter Stegen. xidiga qadka dhexe ee kooxda Bayern ninka lagu magacaabo Leon Goretzka waxa uu sheegay in ay tani ahayd guul weyn balse aysan filayn inay waxaas oo kale ku sameyn karaan kooxda Barcelona.
tahay halka haddaan kaga soo laabano guuldarradaasi Barcelona ay kala kulantay Bayern iyo waxyaabaha laga yiri waxaa xilli horeba soo baxday in shaki la geliyay mustaqbalka Lionel Messi ee Barcelona maadaama hogaamiyahani oo 4 sano ugu dambeysay ku dhibaatoonayay inuu kooxda u qaado Champions League waliba isagu ballan qaaday inuu Champions League ku soo celin doono garoonka Camp Nou. Weeraryahanka reer Argentina oo 33 sano jirsaday ayaa waayihiisii ugu dambeeyay kubadda cagta ku jira waxayna dad badan u arkaan in xidigani uu noqon karo mid halyey ah oo garoonka Camp Nou sii jooga kaasi oo jilalka kooxda ee soo koraya u noqda tusaale wanaagsan. taa badalkeeda dad ayaa qaba aragti ah in Lionel Messi uusan sii joogi karin Barcelona maadaama uu 4 sano ugu dambeeyay niyad jab kala kulmay tartamada qaaradda Yurub. Haddaba arrintan waxa warbaahinta qaarkeed ay tabinayaan fursadda kaliya ama wadada kaliya ee Messi uu ku joogi karo Barcelona in ay tahay in hoggaanka kooxda loo magacaabo saaxiibkiisii hore ee kooxda Xavi Hernandez taa badalkeedana xilli horeba la qabto doorashada madaxtinimada ee kooxda si ay meesha uga baxaan maamulka kooxda ee uu haatan xidigani dhibsaday sida ay wax ku maamulayaan. وتهي عياريهن كلاجو مجعبو ألفونسو ديفيس دايركا يا وعيارة دافع كوحدة باير مونيش أي كم بدها حديه بندقة عجيب كاسمية كلن كا أي باير كقعد كاتي سديد يلا بدأ جول كوحدة برشلونة. هذا بقى حديقة وين أو كبدا عكس مجع كله يولي بتابرها كوحدة سيايا فالعلن كاسمية بندقة داير كانوا رشيد دلك كندا يلاجو مجعبو ألفونسو ديفيس كاسي أو جول عجيب كعويي حديقة جوشوا كيميتش أو عيارة كوحدة باير عيارتها سيسديد جول أي كوحدة سوداليسي. دافع ريال مدريد دفاع بدحك عيارة مارسيلو أي كمدة عياري هندا دنبيت كمدح ودنبيت كبدح عياريهن كاني كأمان تقول ضلعي وحنا وأمان كبحيي صور ودائر كان يصور لجي بوجيسا إنستغرام كا السوق أوريري فرحة أي إجلين إيسا مركا عنده هو أركان أديجا أو عيارية عياريان كرير جيرماني لقوا مجعبو جوشوا كيميش أو إسنا جول كاسيو كعاوي أي شيء إن جول عاونتا ألفونسو ديفيس أي أهيد مد عالمية لنا كلا تبرها كوحدة كوبدا عكت باير مونيتش نيك لقوا مجعبو هانسي فليك أي وحا شيء in ay ahayd mid aad u qurux badan bandhiga ciyaaryahankaasi uu sameeyay isagoo ammaan kala dul dhacay xidigiisa kadib kulanka. Alfonso Davies ayaa kooxda Bavarianka kaga soo biiray naadiga lagu magacaabo Hamburg kaasi oo bishii January ee 2019 kooxdaasi ku soo biiray waxa uu dhaliyay 3 gool isagoo caawiyay 8 gool oo kale kadib 41 kulan oo u saftay kooxda Bayern dhammaan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan. dhinaca suuqa kale iibsigana haddii aanu fiirino kooxda Napoli ayaa hoggaanka u qabatay tartanka kooxuhu ay ugu jiraan ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ay milkiyadiisa leedahay ee daafaca bidix ka ciyaara ee Reguilon. kooxda reer Italy ee Napoli ayaa safka hore kaga jirtay tartanka loogu jiro daafaca bidix ee kooxda Real Madrid Sergio Reguilon sida ay ku waramayso shabakada ciyaaraha ee Calcio Mercato. Chelsea ayaa sidoo kale lala xirinayay 23 jirkan waxaana jirtay in indhaha kooxa badan oo Yurub ah xidigan uu soo jiitay kadib qaab ciyaareed cajiib oo ku qaatay kooxda Sevilla oo xilli ciyaareed amaha ku joogay xilli ciyaareedkan. Napoli ayaa hadda waxay doonaysaa in ay wada hadallo la gasho Real Madrid iyada oo dalab ka gudbinaysa ciyaaryahanka Reguilon si uu safkeeda qayb uga noqdo. waxaa ciyaar xiiso badan oo la sugayo ay caawa saqda dhexe mari doonta Manchester City iyo Lyon haddii ay badiso Manchester City ama Lyon ay badiso labadooda kii soo baxa waxa uu ku aadayaa kooxda ugu cadcad ku guuleysiga Champions League xilli ciyaareedkan ee Bayern Munich taas oo kooxa badan soo marisay wado aad u adag waxaana ay muujisay bandhig cajiib ah kaasi oo dadku aysan filayn Barcelona taas oo xilli horeba muujinaysa inay Bayern tahay kooxda aysan cidna shaki gelin karin inay ku guuleysato Champions League xilli ciyaareedkan. Intaas ayaan daawadayaal ku soo gogoynaya barnaamijka gorfaynta ciyaaraha ee Som Sports tan barnaamijkan ka xigtan ku doono waxaan kaga tageynaa nabadgelyo.